wafdi ballaaran oo hogaaminaya xildhibaan Maxamed Xirsi Obama ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay degmooyinka Qorulugud, Wadaamago, Dhoqoshay, Balidhiig, Nasiye, Cagararan, Coodanle. waxaana ujeedada wafdigan ay ahayd dardargelinta howlaha xisbiga muxaafidka kulmiye. bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay wafdigan oo horkacaya xildhibaan Maxamed Xirsi Obama. waxaanu ka faraxsanahay socdaalkiinan iyo wacyigelintiinan iyo astaamaha iyo qorshaha aad noo soo bandhigteen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waftiga ballaaran waxa la deegaankiinii baad timaadeen si farxad iyo reereen baad ku timaadeen farxad iyo reereenna waad kala noqon doontaan ku soo dhawaada degmada Balidhiig. xildhibaan adiga waftigaagaba indhaha wax ku aragtaan degmadani waa degmadaadii lagu sheegi maayo haddaan nahay mulkiilayaashii xisbiga lahaa kama rabno anagu xisbiga wax aduuna kama rabno wax kale kama rabno wax waxtara annaga wax gashanayna markii horena annaga lahayn oo maal gashan. xildhibaan Maxamed Xirsi Obama iyo xubnihii ku wehelinayay safarkiisa ayaa goobo fagaara kala hadlay bulshada ku dhaqan deegaanada Qorulugud, Coodanle, Wadaamago, Balidhiig, Dhoqoshay oo bulshada ku dhaqan deegaanadaasi uga mahadnaqay sidii ballaarneed ay u soo dhaweeyeen wafdigan oo hogaaminaya xildhibaan Maxamed Xirsi Obama. barbar taagnaa ayaa haydeen kulmiye waxa tiin dadkii dhiigiisa u shubay waxa tiin kulmiye hooyadii dardaarankeenu wuxuu yahay inaynu u codayno xisbiga kulmiye. markii aan hawshii soo galay arday baan noqonayba nimankaygii islaha wax toosiya annagina waa la toosiya waayo waxa noo soo baxay in dadka deegaanka degan ay aad nooga abaabulan yihiin dadkayga ka yimid galbeed degmada Dhoqoshay xildhibaan ka shaqeeyay waxaan ahaa ninkii hindisay iskuulka 4 sano idin jiray imika aad ku wada jeceshiin ee aad wax ka wada dhigataan ninkii hindisay ee kaambiga ku galay baan ahay. waxaan u foodaynaa waa xisbiga aynu inta badan ku jirnay waxaan u foodaynaa waa xisbiga waxa badan qabtay waxaan u foodaynaa waa xisbiga mujaahid ka dhaxlaayo baan u foodaynaa Haddii subhanahu wa ta'ala qariya reer Coodanle inay yihiin dad aad u nool waxaan qirayaa inay yihiin dad aad fariida waxaan qirayaa inay yihiin dad ficil badan waxaan qirayaa inay yihiin dad abaabul badan intaaba waan qirayaa intii imika aan maraayay ololaha waxaad ku jirtaan Coodanle bari iyo galbeed waanu maray waxaad ku jirtaan meelaha ugu ololaha badan. reer Balidhiig waxay doonayaan ba Soomaaliland u fuudaysa waa ictiraaf aynu doonno. Khaliil Barawran TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.